gabdhaheenna waxaa loo yiqiin haybad gooni ahe goshay xidhan jireenoo maryaha looga raarsado gabna waxay ahaayeen intay guud ka dabayaane maantana gad baa lagu arkiyo guuldarriiyo ceebe garoob waalan iyo waxaa ka haray goro iyo food dheere adigoo gidaar uga hor yimid kaama guudayaane hiddihiina waa garab mareen gaar ahaan jiraye iyagoo ninnaba guursan bay wada dambaysteene haweenkeenna dhaqankii gediyey wouga gaabsadaaye kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii sahanka suugaanta qaybtan waxaynu ku soo tabin doonaa maansadii milgaha iyo maamuuska lahayd ee cabdi maxamed awmagan cabdigalayax qaybteedii labaad ha yeeshee intiinii nagu xidhnayd sidaanu barnaamijkii hore ku soo tabinay waxaan idinla wadaagay maanse qurux badan iyo tuducyo aan idinka soo minguuriyey gabayadiisii dhinaca geela jacaylka meesigaas iyo koolkoolintiisa ha yeeshee maanta waxaan ka haaneedi doonaa gees kale oo gugiisu markuu batay gaboobay garhku qaynaxa dhigay gabay u tiriyey cabdi markuu gaboobay ayaa waxaa la weydiiyey oo la to'day cabdiow gabaygii maxaad isaga daysay isagoo afkiisa haysta gabayadii iyo geeraaradiina in muddo ah ka nastay abwaanku marka wuxuu ku jawaabay tixdan aad u quruxda badan kagana warramay waayaha uu maantaa joogo wixii uu soo maray iyo sababaha uu isaga daayey oo uu 16 sababood ku sababeeyey 16 waxaa ka mid ah mar haddii gugiisu batay markuu is-xisaabiyeyna oo xagga godka iyo geerida u batay afkiisa inaanu eedine uu haysto mar haddii wiilal yareeroo markaa kacay gabaygii ligliga haystaan geedkii rag waaweyne jooga oo maanse ruugihina ay ka garab camiranayaan inuu iyadana isaga daayey ta kalena wuxuu sheegay inuu isaga daayey mar haddii gabayga raggiisii go-ay sayidka calidhuux qabaan bulxan raago ugaas iyo rag la mid ah inuu dee gabaygii agoomoobay waxaa ka mid a sababaha uu isaga daayey cabdigalayax inoo sheegay gabdhihii guriga ku ekaan jiray xishoon jiray gayaankood markay arkaanna geed xagga shishe ka mari jiray inay xishoodkii xooreen guga maanta la joogana aakhiru saban iyo adduunyo gadoon ay la noqotay cabdigalayaxe wuxuu yidhi awal maanso waataan gursho gooyey waayahane indhoweydka gaban gaabsado wayga gaarateene anigoo aan gabin baan nece kama galgaaleene 16 haloo wada gartaya wowga gaabsadaaye gabaygu waa yaraa maxamedow gaafihii hore garka iyo sidaydaas nimaan guudka ka caddaanin goloyaasha lama keeni jirin gaafka loo tago maantana gurbod iyo gabdhiyo gaban yaroo wiila iyo odayo guxushaayaba guusha loo simiye gef inay amuurtaasi tahay wowga gaabsadaye gubaabo iyo goodi iyo gabay ma daayeene haddii aan garwaaqsaday intaan gu'iyo waa joogay nin gaboobay oo oday noqdiyo guud caddaan ahaye gafkii iga dhaca maanta waa geeri oo kale inuu godob islaameed ibado wowga gaabsadaaye cibaadada ninkii gaarka mara guuldarraa heliye gabaldhiciyo waagii beriyo gooriyo ayaanba marna kama gidaadeen fahmada guule ii qoraaye gabayada haddaan shubi lahaa amase geeraarka wuxuu iga galaafanahayaa garaasho diineede gelin dhexe habeenkii wardaan guriya laylkiye nin ilaah u go-ay baan ahoo wowga gaabsadaaye gaddaan anigu soo maray haddaan gunuuga sheekeeyo inkastoo barkood go-ay naf lahaa geeriba u imane raggii geedka iila joogi jiray gabalkiiba noole galka bari garoowiyo nugaal garaacad meesheeda goodiga hargaysiyo intii guban ka hoosaysa garloo gubay galbeed iyo jigjiga gooba dhinaceeda garbaha ralay iyo dhulka gedo ka balleeya inkastoo guriyo meelo iyo gobollo soo sheegay aniga gayiga ee bahay gabay u teednaaye maantana rag badan buu gurmaday goohan maansada inay wiilal wada guuxayaan wowga gaabsadaye
nin gulboodah lama qaybsan karo guun haddaan ahaye midaan hooyadii gurinin oo guriga meeraya aan weli gosheediyo ka bixin guraada awrkooda hadduu goob walbaba taagan yahay gabayna tookhayo kolna inaanan garab joogsan karin wowga gaabsadaye gabay hawle iyo raage iyo gooniba lumaye cali iyo gahaydh iyo qamaan geeribaw timiye ismaaciilna mawd baa gembiyey waana tuu go'aye afcad wuxuu gallayryayn ogaa geesigii dhimaye galaaskayga nimankii ahaa guluuli weeyaane anna goordhow baan filahayaa goofla ii qodoe inay guurtidii eber yihiin wowga gaabsadaye markaan gaban ahaa iyo haddoon gooman ooda yeeshay intii aniga geediyo shir iyo garaangar lay keenay amaan meelo lagu guulay iyo gogol ka sheegayey haddii aanan gabaro weyn ku helin guuyo iyo xoolo inaan faa'iida laga gaarahayn wowga gaabsadaye haddii aanan gobaadoo dhashiyo geri ku taabaynin ama aanan gamaankii fardaha goray ka fuulaynin ama aanan garaadiyo bilado garaab ka saaraynin waxba goodigiisiyo ma rabo golo ka sheegiise inaan galaaladiisu i anfacayn wowga gaabsadaye nin ragihii wuxuu galay amuu gudayba loo diidiye haddaad geesi tahay meel walbaba cadowga guulaya giiriyaalihii kula dhashaa gaalo ka neceebe inaan xaasid gacal ku ahayn wowga gaabsadaye adduunyadan bagaasira ninkii gaan ahaan jiraye ninkaan gacanta lala laaci jirin waa gabbanayaye ha yeeshee gadaal niman dhashiyo gaacufyaa kacaye amba gabay rag baa igu qabsaday iina goodiyaye in adduunku gaafaysi yahay wowga gaabsadaye shir la gooday waa yeel gabraday talo la goyn waayey guddi ururtay niman gaanahoo garaangar feeraya hajada guyaal iyo guyaal gees u dhiici weyday garaadiyo wax loo sooci jiray gudcaddoodaye haddaana geedka wiilkii yarbaa giciisa soo siine haddaanse guushay kani waa adduun geesu foorara'e inba aakhir saabankii la galay wowga gaabsadaye gabdhaheenna waxaa loo yiqiin haybad gooniyahe goshay xidhan jireenoo maryaha looga raarsadoe gabna waxay ahaayeen intay guud ka dabayaane maantana gad baa lagu arkiyo guuldarriyo ceebe garoob waalan iyo waxaa ka haray goro iyo food dheere adigoo gidaar uga hor yimid kaama guudayaane hiddihiina waa garab mareen gaar ahaan jiraye iyagoo ninnaba guursan bay wada dambaysteene haweenkeenna dhaqankii gediyey wowga gaabsadaye gooraan fardood iyo darmaan galow ka dheeraysa sayidkiiba gel iyo lo iyo godol wuxuu haystay arlaa'iga wuxuu daargingimay guluufna heensayey gubnihii daraawiish wuxuu gaasas biixinayey gumaysiga wuxuu laayay oo gaalla diiriraayey gebagebo intuu dhigay wuxuu libiin ku geeraaray wuxuu naago goobo guursado aqal la gawriirshay intaasoo gallaada oo ilaah ugu gargaarayey geegii buu ka taagnaa cidla ah maalintuu go'aaye nimankii godka u qoday ma cunin gudurkii duugeede gadaal xumida duunidan arkoo uga gaabsadaye garaadnimaan lahayn baan ogeyn gaadistii malage gugan maanta joogiyo haddaan gadaa ka faalleeyo dantaalaha malagii haystay iyo gamaaska mawdkayga markuu ruuxa iga goyn lahaa waa la soo galaye inay taasna iigu guulan tahay wowga gaabsadaye inkastoon guyaal badan cimriga geliimo sii joogo maraan goobo mawdkii rabbaa ii gadaal imane godna waa i sugayaa qubuur gudaa ciriryoone gabdhaha agoontoobi iyo gaariyaan qaboe intaanan ciidda hoosteeda gelin wowga gaabsadaye ilaahay kuu naxariiso cabdi maxamed oo magan cabdigalayax u ekaa tixdii uu tirin jiray cali aadan xuseen rabbi dhammaantood ha u naxariistee intaas baynu ku soo koobaynaa barnaamijkeennii sahanka suugaanta oo aynu maanta ku soo qaadannay 16 hal oo wada gartaya oo uga gaabsaday